Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaad nagala socotaan waa boggeena Facebook ee Canaan. Waxaan maanta falanqayn ku samayn doonaa xaalka magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool oo muddo bil ah ka maqan gacanta Somaliland. Waxaanan iskula eegi doonaa falanqaynta maanta isbedelada dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo weliba halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka gobolka Sool. waxba kuma noqon doono taariikhda isbedelada siyaasadeed ee gobolkan ka dhacay, balse waxaan xoogga saari doonaa falanqaynta iyo saadaalinta ku saabsan halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka gobolkan muddada dheer ay ka taagneyd dhibaatadu. Waxaan ka bilaabi doonaa dhinaca maamulka Puntland Soomaaliya. Puntland muddo dheer oo ku siman ilaa aasaaskeedii waxay sheeganaysay deegaankan, maadaama oo Puntland lagu dhisay qaab qabali ah. Waxay markasta ku doodaysay inay iyadu mas-uul ka tahay deegaanada ay degan yihiin dadka ay isku isirka yihiin. Waxaana marar dhowr jeer ah ay sheegtay in maamulka iyo dadka gobolka Sool aysan maamul aan kooda ahayn hoos tegi karin, samaysanna karin. taas oo ay ugu dambeysay 25kii August kabacdi markii Somaliland laga saaray gobolka Sool oo baarlamaanka Puntland ay si cadaan ah u sheegteen mar kale gobolka Sool inuu ka mid yahay maamulkooda Puntland. Somaliland ayaa iyaduna door weyn ku leh qadiyadda gobolkan, maadaama dadka gobolkaas degaa ay qayb ka ahaayeen axdi qarameedkii Somaliland lagu dhisay. Somaliland waxa ay ku dhisantahay axdi qarameed ay wada saxiixdeen dadka degan deegaanadii dhulka Soomaalida ee Ingiriisku maamuli jiray. Dowladda Itoobiya ayaan iyaduna meesha ka maqnayn. Itoobiya waxa ay taageertay warbixino ay Somaliland ku sheegtay in ay gobolka Sool yimaadeen unugyo ka tirsan argagixisadii ka dagaalamaysay koonfurta, bartamaha iyo bariga Soomaaliya. Garaadada gobolka Sool oo buddhig u ahaa qorshaha Somaliland lagaga saarayo gobolka Sool ayaa ku dhacay khalad weyn oo istaraatijiyadeed, kaas oo sabab u noqon kara in mustaqbalka gobolka Sool noqdo meel ay ku dagaalamaan ama ku lagdamaan argagixisada iyo beesha caalamka. Garaadada gobolka Sool waxa ay soo dhaweeyeen cid kasta oo ay u arkeen inay ka taageeri karto dagaalka ay kula jiraan Somaliland, xataa argagixisaba ha ahaatee. taasoo sabab u noqotay in raggii waaweynaa ee hogaaminayay kooxda shabaab sida Fuaad Shangale oo madaxiisa malaayiin dollar saaran tahay inay iska soo xaadiriyaan magaalada Laascaanood, maadaama kooxdii uu ka midka ahaa ay wajahayaan kacdoono iyo dagaallo xoog leh oo kaga socda koonfurta Soomaaliya. wuxuu gabaad ka soo dhigtay Laascaanood oo qaab qabyaaladeed loogaga gacan haadiyay. taasi waxa ay fursad siisay Puntland, Somaliland iyo Itoobiya. Puntland oo ka cabsi qabtay in Laascaanood laga sameeyo maamul aan keeda ahayn waxay u noqotay fursad ay ku cabsiiso garaadada, oo ay ugu hanjabto in haddii ay yeeli waayaan waxa ay rabto ay gobolkaas ku tilmaami doonaan meel bahalgaleen ah oo argagixisadii koonfurta lagaga soo adkaaday gabaad noqotay. Somalilandna waxa ay siisay fursad ay mar kale weeraro rogaal celin ah ugu qaado gobolka Sool, iyadoo lagu sii daba dhuumanayo la dagaalanka argagixisada. Itoobiya oo iyaduna danteeda ka dhex aragtay gobolka Sool ayaa rabtay inay keento ciidan nabad ilaalin ah oo ka tirsan ciidanka ATMIS. ciidanka ATMIS oo qorshahay Soomaaliya u joogaan tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa gobol kasta oo ay tagaan kaga tegi kara. waa sida ay Itoobiya ku doodayso. qorshaha fog ee Itoobiya waa helidda deked ay wax kala soo degto. Garaad Jaamac oo imika ku sugan Addis Ababa ayay Itoobiya qorshahaas isku mari la'yihiin, balse xataa haddii uu diido garaadku soo jeedinta Itoobiya xoog ayay ku tegi doontaa gobolka Sool, si la mid ah sidii ay Kenya ku tagtay Kismaayo.